Axmed Madoobe oo gaaray magaalada Garowe maalnimadii shalay ahayd shirar waaweyn oo ka soconaya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe oo qorshe waaweyn soo dejiyay. Xasan Sheekh Maxamuud oo qaadaya tallaabooyin waaweyn ka hor kulanka uu la yeelanayo madaxda mucaaradka. Haddaba maxaa ka soconaya magaalooyinka Garowe iyo Muqdisho? Maxaa ka jira in ciidamada Eritrea lagu soo tababaray uu kala diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? Maxayse tahay cabsida xilligan soo wajahday xildhibaanada baarlamaanka oo qorshayaal culus dejinaya? Haddaba xiisad siyaasadeed oo culus oo Soomaaliya ka soo kordhay. Sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena qaybaha dambe sidee ayuu u hirgelay xabad joojinta la kala dhex dhigay Israa'iil iyo Iiraan. Maxayse tahay dabayaaqada xabad joojintaasi? Tallaabooyinka waaweyn ee ay Iiraan qaaday maxaa laga soo diiwaan geliyay weeraradii xalay lagu qaaday dalka Qatar? Qodobadaasi iyo kuwo kale oo waaweyn ayaan barnaamijkeena ku soo bandhigi doonaa. Ilaagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada kale oo sheer ka mid noqo saaxiibada ku xiran barteenan YouTube oo ku soo bir mahadsanid. Xiisado siyaasadeed iyo mowjado waaweyn oo siyaasadda Soomaaliya ayaa marba marka ka dambeysa soo qubanaya, waxaana xilligan soo baxaya qodobo waaweyn oo ka imaanaya dhinaca mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. Haddaba shir shalay ka dhacay Hotel Jazeera oo ay yeesheen madaxda mucaaradka oo ugu horeeya Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Kheyre iyo madaxda kale ee mucaaradka ee la magac baxay samata bixinta siyaasadda Soomaaliya oo dhowaan ogolaaday inay kulan la yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay ugu biiriyaan qodobada ay si weyn u diidan yihiin, ayaa la ogaaday in 4 qodob oo waaweyn ay soo saareen islamarkaana ay doonayaan in maalmaha soo aadan ay kula kulmaan madaxweynaha Soomaaliya islamarkaana ay hordhigaan. Qodobadaas ayaa waxaa laga helay oo ka mid ah in sidii hore lagu soo celiyay dastuurka Soomaaliya, si la mid ah in doorasho wadar ogol lagu yahay laga qabto gudaha dalka, in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doorashada talada dalka dhexda soo dhigo. Qodobadaas iyo kuwo kale oo xasaasi ah ayay mucaaradka soo bandhigeen ayaa la yiri si ay u hordhigaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay maalmo dhow la kulmi doonaan. Dhinaca kalena magaalada Garowe waxaa gaaray madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo halkaasi si diiran loogu soo dhoweeyay maalnimadii shalay ahayd. Axmed Madoobe ayaana halkaasi u gaaray si kudlad siyaasadeed ay halkaasi uga abuuraan isaga iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo muddo ka badan 3 sannadood khilaaf culus uu dhexdooda yeelay kadib khilaafkooda oo ka dhashay in Axmed Madoobe uu dhabarka ka toogtay Saciid Cabdullaahi Deni doorashadii 2022 bishii May ee uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xilligaasi oo Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ku ballansanaayeen in codadka ugu badan ee Jubbaland uu helay Saciid Cabdullaahi Deni, balse taas si la mid ah ay dhacday oo ahayd inuu Xasan Sheekh Maxamuud codadka u wareejiyo. Saciid oo kalkaasi cara xoogan ka qaaday Axmed Madoobe muddana markaasi siyaasad ahaan ku kala duwanaa ayaa xilligan waxaa la arkayaa in ay sidii hore isaga soo dhowaanayaan kadib kulamo waaweyn oo ka dhacay Abu Dhabi. Imaaraadka Carabtana ay garwadeyn ka ahayd ayaa la tilmaamay in labada dhinac ay heshiis culus ku soo wada gaareen, mar kalena lagu ballamay in Saciid Cabdullaahi Deni la dhiso doorashadii soo aadan ee 2026 ka dhici doonta Soomaaliya. Haddaba kulamada ugu waaweyn ee Garowe ka soconaya iyo weliba dhinacyadan heshiiskooda ugu weyn waa in la dhabar jibiyo shirka dhowaan ay yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulafada mucaaradka ee samata bixinta ku midoobay. Waxaana la tilmaamayaa in Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe ay markaasi doonayaan in halkaas ay isugu keenaan xubno kale oo mucaarad ah iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka kuwa mucaaradka ah. Waxaana la qorsheynayaa in shirweyne ay ku dhawaaqi doonaan islamarkaana ay 10 bilood ee u harsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay cadaadiskii ugu badnaa saari doonaan. Garowena ay noqon doonto barta kulamada ee laga duulo islamarkaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loogu mucaarado. Waxaana soconaya dabindaabiye iyo sidoo kale halis weyn oo siyaasadda Soomaaliya ku soo wajahan iyo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu soo riixo hirar waaweyn oo siyaasadeed si markaa 10 bilood ee ugu harsan loogu furo jahawareer siyaasadeed oo weyn. Dhinaca kalena waxaa la helay warqado dhowaan soo baxay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay, kuwaasi oo lagu kala diray ciidamada Eritrea lagu soo tababaray ee dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku wareejisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa la kala diray dhammaan ciidamada Eritrea lagu soo tababaray iyada oo lagu kala darayo
guutooyinka kala duwan ee militariga Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana tilmaamay in ciidamadaasi laga dhigo in aysan jirinba laba meel isku sheegta isla markaana loo kala qaybiyo dhammaan guutooyinka kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa la leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu aad uga cabsi qabaa maadaama badbaado qaran xilligan aan la soo dhisi karin in awooddan ciidan ee qarsoon ee ciidamada Eritrea lagu soo tababaray inuu adeegsado madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii ay dhacdo in Xasan Sheekh Maxamuud uu xilkan isku dhajiyo. Haddaba si weyn looma oga sababta kaliftay in ciidamadan oo awood ahaan iyo sidoo kale saanad ahaanba aad u dhisan waqtigii ugu badnaana tababar soo qaatay in xilligan la kala diro isla markaana lagu kala daro ciidamada kala duwan iyo guutooyinka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddaba waan arki doonaa wax walba ee ka soo kordha amuurahaasi. Dhinaca kalena ugu dambeyntii waxaa la joojiyey labada dhinac xabad joojin dhowaan lagu dhawaaqay oo ay markaasi dhex marta Israa'iil iyo Iiraan ayaana xabad joojinta markii ay ka harsaneyd 20 daqiiqo waxa ay samaysay in gantaalo tirabeel ah ay markaasi ku gantay deegaano badan oo Israa'iil ka tirsan halkaas oo laga soo tabinayo in dhimasho kontomeeye ah ay ka dhasheen iyo dhaawacyo intaasi ka badan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana bartiisa Twitter-ka waxa uu ku qoray in la hirgeliyey dhammaan xabad joojinta balse Iiraan ay ku xadgudbayso marba marka ka dambeyso. Iiraan dhinaceeda waxa ay sheegtay in xabad joojinta ay qaadatay isla markaana dhinaceeda ay ka fushay tanina ay ahayd dabagoosasho markaasi la doonayo in saacadaha iyo daqiiqadaha ugu dambeeya la isgaado ama qolo walbo qolada kale ay gaado balse Iiraan waxa ay noqotay mid si la yaab leh xabad joojintaasi inta aysan saacadu ku dhicin in ay iyana samayso bandhig cajiib ah oo ah in argoosi weyn ay ku sii markaasi uga dhigtay in gantaalo tirabeel ah ay Israa'iil huwiso. Haddaba Iiraan waxa ay xalay weerar xoog leh ku qaatay dalka Qatar waxaana si weyn u cambeereeyay dowlado badan. Dowladda Qatar ayaana waxa ay si weyn u cambaaraysay weerarkaasi ay Iiraan ku qaaday waddankeeda gaar ahaan xafiisyada iyo sidoo kale xerooyinka Mareykanka oo halkaasi ku leeyahay. Iiraan ayaana hanjabaadani maalin ka hor sheegtay kadib markii Mareykanka uu weerar culus ku qaaday baraheeda lagu bacrimiyo hubka nukliyeerka. Iiraan ayaana kolkaasi si weyn uga carootay tallaabada uu qaaday Mareykanka waxa ayna sheegtay inay beegsan doonto goob walbo ay u aragtay muhiim oo Mareykanka uu ku leeyahay xerooyin waaweyn. Qatar ayaana xalay ka mid noqotay oo laga arkayay iyada oo ay dul hoobanayaan madaafiic waaweyn oo markaasi laga soo gamay dalka Iiraan. Iiraan ayaana guulo waaweyn ka sheegatay weerarkaasi oo ay sheegtay in ay ku qaaday gudaha waddanka Qatar. Dowladda Qatar ayaana si weyn uga carootay oo sheegtay inay qaadi doonto tallaabad weyn oo la amakaago. Haddaba wax walba ee ka soo kordha amuuraha dibadda iyo gudahaba waxaan ku soo qaadan doonaa wararkeennii barnaamijyadeena xiga. Mahadsanidin.